waryaada assalaamu calaykum. Akhyaarta cashirkan oo ku saabsan enerjiga iyo ka faa'iidaysigiisa. Enerjiga iyo ka faa'iidaysigiisa, enerjiga meelal badana energy laga dhaliyaa, balse waxaan ka hadli doonaa maanta cadceedda, dabeesha, biyaha iyo digada xoolaha. intaas waxaa laga dhaliyaa energy. cadceedda qaabo badanaa loogu dhaliyaa, laakiinse so far waxaan ka hadli doonaa ilaa hadduu yiraahdo solarka iyo solarka biyaha lagu kululeysto, iyo daadka ama webiga ama lagaha sida looga dhali korontada, dabeesha kale sida looga dhali, iyo biogas. waryaa in ku daalinin cashirkan cashir soo socda oo ahay nin saaxiibkee oo Yurub jooga ka hadlayay, marka qaybtaana igu soo aaday ka bixi doona ilaa hadduu yiraahdo. isagana bilaabay cashirkan maxamed cabdi faarax lahaa, kule anigana halkaana kasii wadi doonaa. tan kalena cashirkeena capacity-ga isagana wuu ku xigsan doonaa. capacity dadka yaqaana waa electronic more. marka tana cashirkan aan ka hadli doonaa ilaa hadduu yiraahdo. waxaana aan xoogga saari doonaa waa dabeesha, waxaana tan kale ku xigto waa solarka, tan kale waa gaaska, iyo dabeesho maxaa wey iyo biyaha iyo tan lagu kululeysanayo biyaha qubeyska. sidaan sawirkan ugu jeedid, qofkan korontada wuxuu ka dhaliyay isagoo dynamo isticmaalayo, biyuhu ka dhaliyay, wuxuu kaloo ka dhaliyay solarka. wax kana halkaan uu fadhiyaa, qubeyskiisi wuxuu ka dhaliyay qoraxdii. digada xoolahana wuxuu ka dhaliyay gaas, wuxuu ku karsanayaa. kabacdi digada xoolahana fertilizer haddana u samaysay, fertilizerkaas haddana wuxuu ku beeranayaa beertiisa. dabeeshina wuxuu isticmaalay electrical ahaan uu isticmaalay, isagana uu isticmaaloyaa. kama qasno, waa power sufficient waa ninkan. marka cashirkan aan ka hadli doonaa ilaa hadduu yiraahdo. dadka faa'iidaysanayana welcome, dadka su-aalo qabana wayna soo weydiin doonaan. guud ahaanna waxa enerjiga meelaha laga helo dhanna waan ka hadli doonaa, waan tataaban doonaa. inkastoo ay laga helo maxaa wey daamamka waaweyn wadamo qaarkiis dhistaan oo biyihii ka mid tahay. waxaa jiro uunka dhulka laga soo saaro, oo uunka badan dhulka ka soo saaro meelaha volkaanada agagaaradooda naturally uunka soo baxo oo laga saaro, iyadana energy laga soo saaro. dhulka dhuxusha laga qodo oo isagana enerjiga laga soo saaro. nuclearka isagana laga soo saaro, kaas waa based on chemical laga soo saaro. energy laga soo saaro wax la shidayo, inta gaas la shido isagana yani looga soo saaro energy. energyga meelal badan uu ka imaan karaa, balse annaka waxaan ku koobnaan doonaa ilaa hadduu yiraahdo solarka, windka, biogaska iyo waxyaro basic ah. solarka waa kanaha qaabka uu dhisan yahay, qaabka loo sameeyey. windka waa kaasaha qaabka uu samaysan yahay. laba noocaa jirto. tan kalena mid kale aan hadhow dambe mustaqbalka aan ku dari doono waxay noqon doontaa kan hirka, kanoo la dabagediyey. yani kan hadda wejiga koro u jeedaa dabeesha waaye, laakiin hirkana waa loo isticmaalaa, waa la dabagedinaa. hirka maxaa kale kan daamkan hydroelectrical
hadda Ethiopianka sameynaya kolley soo shaqeeya waa maxaa way tunnel loo sameeyay halkan oo biyaha yani ku soconaya flowgiis way yaqaanaan flowgu ku socdo biyahan oo cabiran yahay biyo kasta iskama soo galayo meeshan waxay u sameeyaan hadda meeshan kuma sawirna laakiinse meel ay ka xiri karaan ay ka furi karaan soo wuu qiyaasan yahay meeshan daamkan waxa soo gala biyaha kale wuu qiyaasan yahay waqtigu ku socdana saacadu ku socdana way yaqaanaan ka bacdi bahashan uu wareejinaa markuu wareejiyo waxay wareejinay diinimadan waxay dhalinay electricalkaas maxaa transformerkaas step up uu ku sameynaa meeshan markuu ku sameeyo waxa qaadayo powerkaas power line-ka qaadayo saasay lagu dhalinaa oo yani korontada loo qaybinaa laakiin muhiimadda korontada qaabkay u dhalato waa wareegaan bas wax wareegsamay ninkan nuclearka laga dhaliyo waa chemical bason uranium halkan ku jirto birarkan ku jirto uranium reactor wuxuu la sameynaa birarkan iyo biyihii ku jira ka bacdi wuu kululeynaa biyaha halkan ku jira wuu kululeynaa biyahan marka weligood eelood inta kama baxayaan marka la bedelayna si safe loogu bedelaa faham marka halkan biyahana kululaanayo biyahan markay kululaadaan oonay soo bixinayaan unkan waxay wareejinaa turbine-kan ka bacdi halkan ay usoo dhaadhacayaan way qaboobayaan waa la qaboojinaa way socdaan haddana maanta oo dhan saani biyihii usoo yani u wareeganaa biyahana inta ku jirana intuu ku wareeganaa kama soo baxay kan aad iyo aad halis u yahay soo kan markasta waa la kontroolaa halkan waxaa ku hareersan derby especially loogu talagalay inuu radiation ka soo bixin ay macdan iyo waxyaabahaas ku dhisaan oo aad iyo aad u qoflan oo aad iyo aad hadduu wax inta ka dhaco inuunan environmental effect sameynin that is why dadka badanaa ay ka walwalaan hadduu kan halkan wax ka dhaco yani wuxuu soo degi karaa radiation oo aad halis u ah that is why ay dhahaan safe ma ahan qalad yar hadduu dhaco oo halkan ka soo baxsada dhib uu keeni karaa laakiinse haddaa la xadido dhibkiisa meeshaasuu ku ekaad karaa biyahana effect kuma sameynayo sababtoo ah biyahan isma taabanayo tubo maanta dhan intuu ku pump gareynayo intuu ku soconayo intuu wareeganaa laakiin maadaama inta marayo ayuu kan kululeynaa biyaha inta ku jiro biyaha inta kulul markuu kululaado steam ahaan uu soo baxaa steamkana kan wareejinayo ka bacdi halkan uu soo maraa qaboojinaa wax yar haddana noqonaa inuu kululaanina yani kan hadduu aada u kululaadana ma fiicno soo markasta biyaha in la qaboojiyo la waxeeyo waaye oo saas loo controlo kan meelal badan waxaad arkaysaa kan inuu iyagoo 4 ama 2 dhisan yihiin biyahay qaboojinayaan basically biyahay qaboojinayaan kusoo noqonayaan biyahay qaboojinaa badanna waxaa laga dhisaa meelal webi u dhow oo biyihii siday yani webiga ugu shumaan markaa kan looma baahno tan intaana ugu baxeynaa qaabka u shaqeeya waa intaas maxaa ku haray biogaska haddaan wax yar ka hadla isagana biogaska ujeedaa taanka ujeedaa halkan taank kala ujeedaa halkana taank yar taank ma dhihi kare afar geeskan oo ku kasoo bilaabanayo sheekada iyo taankigan oo gaaska qabanayo iyo labadan engine iyo heatkan soo sawirka sidaad ugu jeedid waxaa ku sawiran doofaar iyo
iyo lo. So muhiimadda inta aan ka baranayn waa maxaa waye digada xoolaha ayaan halkaa lagu qasaa, kabacdi intaa lagu shubaa taangigan ay ku dhex qasmayaan, uunu bixinaa, uunkaasoo gaas ah, gaaskaasoo u socdo matoorka u galaa. laakiinse isla markii ma galayo, ogaaw howl badanaa inta laga sameynaa. gaaska lagu sifeynaa, gaaska la sifeynayo, waxa laga sifeynayo iyo qaabka loo sifeynayo waa ka hadli doonaa, cashir kale aan uga hadli doonaa. laakiinse muhiimadda waa maxaa, gaaska halkan ka dhashay in injinkan lagu kici karo oo gaari lagu kacsan karo, nalkana lagu kici karo. tan kalena yacni bahalkan marnaba ma buuxsamayo. sababta u buuxsamayn waa maxaa, markuu bar soo gaaro intuu u gudbaa wixii qashinkii hoos fadhiista halkan oo aadaa. kan waxaa laga dhigaa fertilize, ama waa la qalajinaa, ama isagoo biyo ah ayaa beeraha lagu shubaa. waa fertilize aad iyo aad u fiican. marka cashirkeen intaan ku ekaan doonaa, ilaa hadduu yiraahdo, waana sii wadi doonaa. marka kheyr aan rajeynaa. maca salaama.